حريم شرفيدان oo ahayd mid ay ka soo qayb galeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi xubno kamida golaha wasiirada marwada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ganacsato waxgarad iyo xildhibaano iyo sidoo kale ogaanka sare ee xisbiga kulmiye ujeedada Xarimo Sharafeedan oo ahayd mid gunaanad u ahayd khilaafkii xisbiga kulmiye muddooyinkii u dambeeyay ka dhex taagnaa ee soo dhaweynta iyo soo afjarida khilaafkan ay ku soo jireen amaba ay soo wadeen golaha guutida ee Soomaaliland iyadoo oo ay si aanba qaadeen xubno kamida ganacsatada waaweyn ee Soomaaliland ayaa hadal halkaasi uu ka soo jeediyay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Axmed Saleebaan Dhuxul waxa uu mahadnaq ballaaran u soo jeediyay dhammaanba ka soo qaybgalayaasha madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga marwada koowaad qaranka dhammaanba xubnaha golaha wasiirada xildhibaanada marti sharafta dhammaantiin waxa sharaf gaar ah maanta mudan ganacsatada halkan nala joogta oo ka mid yahay Jaamac Omar Maxamed Aw Saciid Maxamed Xuseen Rashid Ibrahim Ciise oo dadaal fara badan iyo juhdi fara badan galiyay hawsha farxadda leh maanta halkan u fadhiyo iyadoo afhayeenku uu ku soo dhaweeyay Rashid Ibrahim Ciise oo kamid ah xubnaha ganacsatada waaweyn ee hawshan qayb laxaad leh ka ahaa waxaana hadaladiisii kamid ahaa mudane Rashid Ibrahim Ciise madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee casuumadda noo fidiyay ee wixii aanu qabanay gartay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ummadda Soomaaliland oo dhan waan u mahadnaqayaa waxaanu xalinaynaa saasi ahaadaan oo aanay noqon wax burbura ayaan Ilaahay ka rajaynayaa waxaan ka filayaa labadoodaba inaanay wax dambe dib loo maqal sidaan xisbiga gacanta isku haysto guushana ku gaaro wassalaamu calaykum wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Maxamed Biixi Yoonis oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay inuu aad ugu faraxsan yahay heshiiskan iyo guusha xisbiga kulmiye uu mar kale ka gaaray khilaafkii soo dhex galay isagoo baaq u diray guud ahaanba shacabka Soomaaliland in khilaafkaasi uu yahay mid guul ku dhamaaday waxaana wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland hadaladiisii kamid ahaa aad iyo aad ugu mahadnaqayaa odayaasha mashariga ah ee guushan weyn ee maanta ummadda reer Soomaaliland u baahnayd gaaray waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha ummadda oo ka garowsaday oo aqbalay wanaaga iyo talada wanaagsan ee loo keenay waxaan u mahadnaqayaa Muuse Biixi Cabdi oo gudoomiyaha xisbiga ahaa oo aan aad iyo aad ugu tahniyadeynayo gobonimada uu sameeyay garashada uu sameeyay dulqaadka uu sameeyay oo aad iyo aad maanta u ogolaaday dadkii in danta ummadda Soomaaliland meel ku jirto xisbiga Soomaaliland ee kulmiye uu mid yahay aad baan ugu faraxsanahay waxaanu jecelahay xisbigu inuu midoobo inay ummaddu midowdo nabadeenu adkaato caalamka waa arkaysan waxa maanta ka socda nabadgelyada Soomaaliland iyo horumarkeedu waa muqaddas inaynu u midowno mucaarad iyo muxaafidba ayaa aad iyo shacbiga reer Soomaaliland inay ogaadaan maanta hawshaasi way dhamaatay meel baynu ka soo wada jeesanaynaa waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo gunaanadkii munaasabadan Xarimo Sharafeedka ka hadlay ayaa isaguna waxa uu mahadnaq ballaaran u soo jeediyay cid kasta oo gacan iyo waanwaanba ka geysatay isu soo dhaweynta xisbiga kulmiye iyo soo afjarida khilaafkii soo dhex galay xisbiga kulmiye waxaanu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland intaasi kadib uu farta ku fiiqay in dalkani uu yahay midnimadiisa iyo isku duubnidiisa uu ku hiigsanayo in uu ku gaaro mustaqbalka dhow in uu beesha caalamka ka mid noqdo hadallada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka mid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in martida sharafta leh halka isugu timid waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa farxad weyn maanta ah inaan halka kan aan mahadnaq ballaaran uga sheeqadan isugu nimid inaga oo hawlihii dhaxyilay xisbigeena xaleenay waxaan jecelahay inaan mahadnaq ballaaran u jeediyo odayaashii sharafta lahaa ee doorka weyn ka qaatay xalinta khilaafka iyo sukuunka ummadda oo sameeyay sharafta inuu sameeyay aad iyo aad baan ugu soo dhaweeyay ugu mahadnaqayaa waxaan jecelahay inaan mahadnaqa ballaaran u jeediyo
waxaan ilaahay ka baryayaa inaynu waxaynu nahay dad had iyo goorale dee qaran baynu nahay ku jira halgan qaran baynu nahay muxuu ahaa hawl fara badan ummadda iyo dunidu ka sugayso waa caadi waana wax caadiya in amal la isqabto ama wax la sugo yimaado laakiin waynu lahaano qarankeena qayb gurmata waynu lahaano qayb wax la waynu lahaano tan xusukeena waynu lahaano si aynu dhibaatooyinkeena u hor yimaada aynu marba ugu dhubno alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta qorayaasha sarafta leh ayaynu haysanaa qiimaha iyo qayaale aad iyo aadna maaruu ceelinayaa waan soo dhaweynayaa muxuu ahaa kulligiin inta kale aad baan soo dhaweynayaa waa mahadsantiin wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh khilaafkan xisbiga kulmiye ee la soo afjaray ayaa waxa uu hore u garaabtay oo uu saaxadda siyaasadda uga saaray xisbiyo ka mid a xisbiyadii ugu waaweynaa ee talada dalka soo qabtay sidii xisbigii udub ee talada dalka hayay oo khilaaf ba'an oo soo dhex galay kadib uu sababay in uu saaxadda kaga baxo isu tanaasulkan ka dhex dhashay xisbiga kulmiye ayaa waxa uu tusaale u yahay isku duubnida iyo midnimada jamhuuriyadda Soomaaliland isaga oo bartilmaameedna u ah in Soomaaliland muddo dheer ay ku soo caanamaashay wax badanna ay kaga soo baxday isu tanaasulka noocan oo kala ah